imikana xagga iyo Boorame ayaynu kacaynaa bandhiga sanadlaha ee buugaagta ee magaalada Boorame ayaa maanta la furay balse waxa la isweydiinayaa in muddooyin badan la aynu arkayno iyadoo la qabanayo barnaamijyo sanadlaha oo buugaagta lagu soo bandhigayo iyadoo aanay jirinba maktabado ama rugihii buugaagta lagu kaydiyo ama dadku ay tagaan ay ku akhristaan waxa la isweydiinaya maxaa laga faa'iideeyaa haddaba bandhigyadan magaalada Boorame waxaa si toos ah khadka ugu jira Muuse Maxamed Diiriye oo ah gudoomiyaha ururka Xigma Foundation kana mid ah dadka soo diyaariyay bandhigan soo dhawow Muuse Maxamed bal nooga waran sida uu maanta u dhacay bandhiga buugaagta ee Boorame waxaan khadka ayaa ka soo xumaanayaan malaynaya Muuse waxoogaa waan ku celinaynaa Muuse may maqlaysaa si fiican baan ku maqlayaa bal nooga waran maanta sidii u dhacday xafladda iyo nidaamka Boorame Book Fair aad baad u mahadsantihiin bandhiga buugaagta ee Boorame waa kulan sanadle ah oo markii labaad dhacay sanadkii hore ayuu bilaabmay 2019 sanadkan ayaa markii labaad oo 2020 sanad walba waxaa fursad aan u siinaa dhammaan qorayaasha iyo dadka aqoon-yahanka ay ku soo bandhigaan aragtiyooyinkooda waan gartay marka waxaynu arkaynaa in aad looga soo qayb galay Muusow maxaa ugu weynaa maanta sanadkan muxuu yahay halkudhegiinu ama ujeedadiinu sanadkan halkudhega sanadkan aan u bixinay waxa weeyaan akhri oo hogaami waxaanan dhiirigelinaynaa inay mar walba qoraayadu ay ku soo bandhigaan maxaa la dhahdaa goobtaasi buugaagta iyo marba waxay qoreen kaasoo buug keliya maaha ee waxaa garab socdo sidoo kale barnaamijyo doodo dood cilmiyeedyo bandhigyo dhaqameed iyo arrimo kale oo badan sidoo kale waxaa lagaga doodaa arrimaha marba xaaladdaa taagan waxaa buugta ag socda sidoo kale doodo hadda Somaliland waxaa nagu soo wajahan doorashooyinkii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka waxaan fursad marka aan u siinay aqoon-yahanku inay ka doodaan had iyo jeer ay waxa la iska weydiiyo xildhibaanka la rabo ee soo socda waa kuma dhalinyarada iyo caruurta ayaan guriga aqal wax lagu akhristo si loo helo ayaanu keenaa caruur akhriska iyo muxuu ahaa si loogu dhiirigeliyo hablaha ayaa jira sashano gaar u ah ama qaybo gaar u ah oo ay kaga doodaan sidii ay isku weydaarsan lahaayeen aragtiyooyinka u gaara marka qaarkood gaar ahaan kuwa soo socda ee dhowaa arrimaha siyaasadda ku saabsan waan gartay Muuse arrimo badan oo kala gedisan ayaan uga faa'iideysanaa bandhiga buugaagta ee Boorame waan gartay waad mahadsantahay Muuse waqtiga ay nagu yar su'aasha aan rabo ugu dambaysa waxa weeye magaalada Boorame jaamacada ku yaala arday badan baa joogta waa magaalo cilmi balada haddana magaalada maktabad male rug kutubta ma laha dadka Soomaaliduna waxa la dhahaa oral society oo aad waxba ma akhriyaan marka dadkii loo sameeyo horta soo kama horeysaba meelihii agabkii meelihii waxa lagu akhrisan lahaa meelihii buugaagta la dhigi lahaa waad mahadsantahay waa su'aal fiican sidaa awgeed sanadkan waxaan fursad aan u helay in aanu dhagax dhigno rug kutubta ah sidoo kalena rug madxafa waxaan ugu magac darnay maktabadda iyo madxafka Boorame 2 sano gudahood ayuu haddii ilaahay dhado hirgeli doonaa waxaan rajaynayaa 2 sano gudahood in Boorame ay yeelato maktabaddii ugu weyneyd ee regionkan gobolkan sidoo kalena ay hesho rug lagu kaydiyo dhaqanka iyo kaydka ama aynu u naqaanay madxaf way jiraan Boorame maktabada jaamacadaha kala gedisan way leeyihiin maktabado kala gedisan laakiin maktabado yar yar way jiraan laakiin maktabadda ugu weyneyd ayaan rabnaa maayaan maanta dhagax dhignay iyo madxafkii waxaan rajaynayaa Muuse aad baad u mahadsantahay waqtiga inaga dhamaaday aad baan kugu mahad celinayaa Muuse Maxamed Diiriye oo iga soo biiray magaalada Boorame iyo bandhiga buugaagta